bismillaahi raxmaani raxiim kulan waxaan daawadeel kusoo dhawaada qodobada wararkooda ugu waaweyn aan idiin waxaa ka mid ah baydhabo oo qarka u saaran inuu dagaal cusub ka qarxo ay ciidanka lafda gareen oo ku jira diyaargarowgii ugu dambeeyey ee dagaal ay ku qaadaan baydhabo doorashada madaxweynaha koonfur galbeed oo ka soconaysa baydhabo iyo xiisad culus oo ka taagan magaaladaasi qodobadaas oo faahfaahsan ayaad wararkeena ku daawan doontaan balse saaxiib yaal waxaa idinka codsanayaa inaad subscribe sartaan janalka si aad u heshaan wararka iyo macluumaadka halkan aan soo gelino maasanidii dhammaantiin ba aynu ku bilowno xaaladda siyaasadeed ee mid amni ayaa ka taagan magaalada baydhabo islamarkaana lasoo warinaya inay sii xoogeysanayso kadib markii ciidanka taabacsan cabdilcasiis xasan maxamed lafdigreen ay bilaabeen dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ay ku doonayaan inay weerar ay ku qaadaan magaalada baydhabo ee gobolka bay xilli magaaladaasi la filayo inay ka dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo lasii ogyahay inuu ku guuleysan doono gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ee waqtigiisa u dhammaaday sheekh aadan madoobe kaas oo loo saadaalinayo inuu noqonayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ciidanka taabacsan lafdigreen ayaa si weyn u diidan doorashada ka dhaceysa magaalada baydhabo ee gobolka bay wararka ka imaanaya magaalada baydhabona waxa ay warinayaan in dowladda federaalk soomaaliya ciidankii ugu badnaa ay dhigtay xaafadaha magaalada sidoo kale dabaqyada magaalada ayaa la saaray ciidan tirapel kuwaasi oo la sheegay inay ka hortegayaan weerarka ay qorsheynayaan in ciidanka lafdigreen ay ku qaadaan magaalada baydhabo ee gobolka bay saraakiil ka tirsan ciidanka taabacsan cabdilcasiis xasan maxamed lafdigreen ayaa ku jira diyaargarowgii ugu dambeeyey iyo sidoo kale abaabulkii ugu xoogganaa ee dhaqdhaqaaq militari oo culus oo sarreeya kaasoo ay ku doonayaan in mar kale ay jilbaha u aasaan weerar culusna ay ka geystaan magaalada baydhabo ee gobolka bay halkaas oo laga cabsi qabo in xasarad culus ay ka dhacdo mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed islamarkaana taabacsan cabdilcasiis xasan maxamed lafdigreen ayaa tegay ciidanka ku sugan duleedka magaalada baydhabo ee gobolka bay halkaas oo ay ka bilaabeen qiimeen heerkiisa ugu sarreeyay ee diyaargarowga ciidanka xilligan ay ku jiraan islamarkaana waxay kula dardaarmeen in ciidamada ku sugan furimaha hore ee dagaalka ay u diyaargaroobaan duulaan cusub oo lagu qaadayo magaalada baydhabo ee gobolka bay wararka laga helayo magaaladaasi ayaa tilmaamaya in ciidamada taabacsan lafdigreen ay wadaan abaabul iyo diyaargarow la xiriira suurtagalnimada dhaqdhaqaaqi ciidan oo ku wajahan magaalada baydhabo halkaas oo hadda ay ku sugan yihiin ciidamo taageersan dowladda federaalk ee soomaaliya arrintan ayaa imaanaysaa xilli ay sii kordhayaan muranada siyaasadeed iyo loolanka awoodda ee ka dhex jira dhinacyada isku haya maamulka koonfur galbeed labada dhinac ayaa weli isku haya sharciyadda maamulka iyo gacan ku haynta xarumaha muhiimka ee gobolka dadka deegaanka iyo falanqeeyaasha arrimaha amniga ayaa ka digaya in xiisadda ay isku bedeli karto iska horimaad cusub haddii aan xal siyaasadeed laga gaarin khilaafkan cusub ee soo kordhaya ee ka taagan qaybo ka mid ah duleedka magaalada baydhabo ee gobolka bay ciidanka lafdigreen ayaa iyagu waxay ku jiraan diyaargarowgii ugu dambeeyey kuwaasoo ay doonayaan in mar kale ay duulaan cusub ay ku qaadaan magaalada baydhabo ee gobolka bay ciidanka lafdigreen ayaa saacadihii ugu dambeeyey ku jiray dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey kuwaasi oo iyagu la arkayay iyagoo saaran gaadiid dagaal kuna sii jeeda magaalada baydhabo ee gobolka bay dhaqdhaqaaqadan cusub ayaa ku soo aadaya xilli gobolka ay ka jiraan murno siyaasadeed iyo loolan xooggan oo ku saabsan hoggaanka maamulka koonfur galbeed iyadoo dhinacyada isku haya siyaasadda ay wadaan abaabulay iyo dhaqdhaqaaqi iska soo horjeeda maamulka kumeel gaarka ee koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo ee gobolka bay ayaa sheegaya inay doonayaan inay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyada militari ee xilligan ay wadaan ciidanka taabacsan cabdilcasiis xasan maxamed lafdigreen xaalka ayaa u muuqda in markan uu faraha ka bixi karo islamarkaana khatar weyn ay wajahayaan shacabka ku nool magaalada baydhabo ee gobolka bay taasi oo laga cabsi qabo in xaaladda ay isku bedesho iska horimaad hubeysan oo ka dhaca gudaha magaalada baydhabo ee gobolka bay sidoo kale saraakiisha koonfur galbeed gaar ahaan maamulka kumeel gaarka ayaa iyagu waxay sheegayaan in heegan sare la geliyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee kala duwan ee ku sugan magaalada baydhabo ee gobolka bay sidoo kale ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu daadiyey xaafado kala duwan oo ka tirsan magaalada baydhabo ee gobolka bay halkaasi oo la doonayo in looga hortago dhaqdhaqaaqa xilligan ay wadaan ciidanka taabacsan cabdilcasiis xasan maxamed lafdigreen xiisadan ayaa isku bedeli kartaa in dhinacyada saacadaha soo aadan dagaal culus uu ku dhex maro gudaha magaalada baydhabo ee gobolka bay
Ilowreedyo ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyada militari ee labada dhinac ay sare u qaadeen cabsi laga qabo isku dhac dhex mara ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ee ciidanka taabacsan Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdagren. Dhaqdhaqaaqyo aad u sarreeya ayaa laga dareemayaa duleedka magaalada iyo hareeraheeda, taasi oo saameyn ku yeelan karta xaaladda amni ee bini'aadanimo ee xilligan ka jirta magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. Dadka deegaanka iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ayaa sheegaya inay jiraan baqdin xoog leh oo ku aadan inay suuragal tahay in mar kale magaalada Baydhabo uu ka dhaco isku horimaad xubeysan oo dhex mara ciidanka taabacsan Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafdagren iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ciidamadan oo wata hubka noocyadiisa kala duwan ee gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkayaa fariisimo ku yaala hareeraha magaalada, iyagoo samaystay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo sare u qaadaya walaaca cabsi ee xilligan ka jirta magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. Baan u joognana intii uu magaaladii Baydhabo oo qabanaano ka difaacna udowkan oo hani duuli oo markii lamaad hani duuli markii may la faday geek may dharaay waqtiga la soo dadkii mareedi u buriyaan baaburtiyo iyo miidid iyo tan ku tabeen unin noo faday han geek ka taan ruugna unin noo faday intii wadankii ku qabana umati ku dulqaanan ogdin sidiisii ogdin meel kale gabaad ku wada ayaan haafado dhaxdiyo digeen haafadon una kasaaniyo jiiriyaad iyo kasaan meeliyo ka jaraan kasaan shacabkii dhaxdiisa ha digeen jiiri kasto bay dhowrtii ha digeen marka may la faday jiiradaasi oo tanwiinta kasaa laakiin jiirooyin badan oo ka saaray jar yoon hoob ilaahay ersidii nimankaas miidid iyo ibaqtiyo miilan ka qaado fadeen dadka loo faaw unika koobay dadka oo ku horeey qobada la faawisigu marka may la siin ku faday anti una nimankaas oo hiiwaaga hani duuli bay dhow ku bureenano diyaarganina ballanga anti una bilaanten yoonay waayiliintii hami maalan habadiyo la korteegin anti una ku dulqaanan diyaarganina walaalayaal gobonnimo sidiiba salan sheegay dhiigreed iyo ka kooyasa una langna duulaan makiihiini qabiil miihiini reer koonfur galbeed Soomaaliya ana wasiiradii koonfur galbeed ciidankii koonfur galbeed dawladii koonfur galbeed ana qabiil duulaan makiihiini reer koonfur galbeed shakhsi duulaan makiihiini dawladnimadii taana tumun iyo meeshay la masana jarsati dadkii ha ka duulay karaamadan iyo sharaftaana wal aan dhimi inii uu isku qaadno dalkaas ku qaadna koonfur galbeed ku xoreyno inta aan ka jarno haan beledka ha ku hadalaw haayo leh haan meeliyada iska kuusi waliyo eeying maleh haan iniyo wal eeying maalin eday duhure ama bariise yaanti beledka ha siin galeen iyagoo shacab soo sharaftay ilaaliyow lan shacab ay walanka dhoonyi manateedii in burburin ya maalin eday ha siin ku maamuldeena waana ha siin ku nagadeen nimankan walaayo oo tan ka jaraan ilaaliyow ka karaamada dadka reer koonfur galbeedu ilaaliyow ka shacbiga reer koonfur galbeedu ku korqaadow ku dulligii dhibaatada la ka haysado laakiin haanigee ka shacab shoolonka obsadaay ma walaalayaal dhammaantaan noo balama buloodku hor beledka Baydhabo roogni nidaam dawladeeda haysani askariga fasaxa ka bahay kii meel dheer aan bahow iyo kii meel dheer roogo awlaadiisa la roogay qorshe iyo balaan dawladeeda ka dareer labaatan iyo dhowr sano ku hor walaagay aawateedana diideen inay la dulaysada inay sharaftiyo la qaadada inay gabroojo la kufsada inay baldaanka iyo la haayeen dad ajnabi ee Soomaali ee kale ka gumaysadaan labaatan sano ku hor ha diideen qarnigan 22aad oo uu geeka roogna wariidaan haani ku fayleeyeen teknolojiyadana tii ku faylata dhaqaalagaana kii ku fayleeyay ragaana ragii hore ku fayleeyay waqtigan nin hiiliyow inay una haan lahanin adeegsaday dadkaana lahandhaha mari oo la eribaasa ka bedeladi dhiigin baasa ka bedeladi qadiyadiin baasa ka bedeladi gabroogan jirsho haan la eri inuu isku dhaadna waajiba noo saaran dhamashoodana xalaalu lankii guriga keenka kooy dadka keenka kooy reerka keenka kooy in la isku diin ka qabto Daan daawadayaal warka aad ka daawanaysan janalka wanaagtaas amaan Allah.